Saaxiibayaal maanta muuqaalkeen waxaynu ku baranaynaa lacagta kuugu jirta toonkiibarkaaga ee USDT-da qaabkaad u sarifan lahayd ee ula bixi lahayd. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay dhammaan saaxiibada sharafta badan ee ku xidhan channelkeena YouTube ee Maxamed Wardi Official. Saaxiibayaal soo dhawaada, Ramadaan Mubaarak. Ilaahay subxaanahu wa tacaala soonkeena ha inaga aqbalo. bishan barakaysan ee Ramadaanna Ilaahay khayrkeeda hayna waafajiyo dhammaanteenba. Aamiin aamiin aamiin. Saaxiibayaal maanta muuqaalkeen waxaynu ku baranaynaa lacagta kuugu jirta toonkiibarkaaga ee USDT-da qaabkaad u sarifan lahayd ee ula bixi lahayd. Muuqaalkii horena waxaynu ku baranay qaabka lacagta toonta kuugu jirta toonkiibarkaaga qaabkii aad u sarifan lahayd. Marka muuqaalkii horena soo daawo si aad uga faa'iidaysato. Haddaba maanta muuqaalkeen waxaynu ku baranaynaa lacagtan USDT-da ee toonkiibarkeena ugu jirta qaabkeenu u sarifan lahayn. Haddaba qaabka ugu fudud ee lacagtan aad ku sarifan karto waxay tahay inaad lacagtan USDT-da aad ku shubato baayeerkaaga. Iyadoo dollar ahaan ayaad baayeerkaaga ku shubanaysaa. Haddaba saaxiibayaal lacagtan USDT-da network-keedu waa toon weeye. Marka qaabkaad u sarifan lahayd ayaan ku tusayaa. Ugu horeyn waxaad tegaysaa oo aad soo kicinaysaa Google Chrome-kaaga ayaad soo kicinaysaa. Markaad Google Chrome-kaaga soo kiciso, search-inta sare waxaad ku qoraysaa qaybta sare search-inta waxaad ku qoraysaa exchange.app ayaad ku qoraysaa. Intaasaad ku qoraysaa. Markaad ku qorto search-in ayaad taabanaysaa. Wax yar ayaad sugaysaa. Sida tan ayuu kuu soo saarayaa. Sidan ayuu kuu soo saarayaa. Marka halkan markuu kuu soo saaro halkan ugu sareysa ee Bitcoin ay kaaga muuqato waad ku dhufanaysaa. Waxaad ka dhiganaysaa halkan hoos baad u yara soconaysaa. Halka USDT-da ayaad ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufato hoos baad u yara soconaysaa. Qaybta network ayaad ka dooranaysaa. Waxaad ka dooranaysaa hoos baad u soconaysaa. Waxaad ka dooranaysaa toon. Network waad aragtaan saaxiibayaal waa toon. USDT network-keedu yahay toon ayaad ka dooranaysaa waa taa. Markaad ka doorato waad ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufato halkan hoosena waxaad ka dhigaysaa baayeer. Halkan hoosena waad ku dhufanaysaa. Kadib baayeer ayaad ku sii dhufanaysaa. Haddaba markaad intaas soo geliso halkan sare waxaad gelinaysaa lacagtaad soo dirsanayso ee USDT-da kuugu jirta. Tusaale ahaan markaad $3 aad dirsanayso oo USDT-ya oo toonkiibarkaaga kuugu jirta markaad la soo baxayso aad soo dirsanayso waxa ku soo gaadhaya oo baayeerkaaga ku dhacaya $2.75. $2.75 ayaa baayeerkaaga kuugu dhacaya. Markaas sariflahan wuxuu kaa goosanayaa intii yareeda fiiga ahayd ee lacagta lagu dirayay. Markaas sariflahan waa sarifle aamin dad ajaanib iska leh, laakiin waa sarifle waqti dheer shaqaynayay oo lacagaha cryptocurrency-ga sarifa. Haddaba intaa markaad soo buuxiso hoos baad u yara soconaysaa. Halkan waxaad gelinaysaa lambarka baayeerkaaga ee lacagta lagu dirayo ayaad gelinaysaa. Markaad lambarkaaga baayeer halkaa aad ku baasti garayso, halkan hoose email-ka waxaad soo gelinaysaa Gmail-kaaga gelinaysaa halkan hoose. Halkan hoosena Gmail-kaaga ayaad gelinaysaa. Marka halkan waxaynu gelinaynaa Gmail-keena. Markaynu Gmail-keena halkan aynu soo gelino hoos baynu yara soconaynaa. Haddaba halkan hoose waxa laga doonayaa xarfaha koodka ee halka kaaga muuqda inaad halkan hoose geliso ayaa laga doonayaa. Marka waa inaad u qortaa xarfahaas siday u qoran yihiin waa inaad u qortaa. Haddaba xarfaha halka inooga muuqda markaynu halkan soo gelino halkan baynu saxda saaraynaa halka markaynu saxda saarno halkan hoose submit ayaynu ku dhufanaynaa. Markaynu ku dhufanno sida tan ayuu inoo soo saarayaa. Haddaba halkan wuxuu inaga tusayaa lacagteenu soo dirsanayno ee USDT-da iyo lacagta baayeerkeenu ku soo dhaxaysa. Marka hoos ayaynu yara soconaynaa. Markaynu hoos u soconno inta ay daqiiqadahan socdaan ayaa laga doonayaa inaad lacagta soo dirto. Haddaba markaad hoos u yara socotid halkan hoose address-kan baad copy garaysanaysaa. Address-ka halkan kaaga muuqda ayaad copy garaysanaysaa. Marka address-kan ayaynu copy garaysanaynaa.
halkan ayaad ku dhufanaysaa halkan aan mouse uga calaamadeeyay. halkan marka saa ugu dhufato copy ayuu soo qorayaa oo addresskiisaasaad ku copy garaysatay. marka addresskan waxa laga doonayaa inaad lacagta ku soo dirto waa kii aad lacagta ku soo diri lahayd weeye. marka waxaynu ku laabanaynaa Tonkeeper-keeni. markaynu Tonkeeper-keeni ku soo laabano USDT ayaad ku dhufanaysaa. markaad ku dhufato halkaas send ayaad ku sii dhufanaysaa. markaad send ku dhufato kadibna addresskii aynu soo copy garaysanay ayaad halkaas sare ku paste garaynaysaa. markaad ku paste garayso halkan hoosena waxaad gelinaysaa lacagtii aad soo diraysay. tusaale ahaan $3 ayaynu halkan soo gelinaynaa. markaad soo geliso halka lacagtaad soo dirsanaysay kadib waxaad dib u laabanaysaa. markaad dib u laabato halkan miimo ay ku qoran tahay soo ma aragtid lambarka miimo ay ku qoran tahay ayaad isagana copy garaysanaysaa. copy ayaad halkaas ku dhufanaysaa. copy ayaad siinaysaa kadib waxaad ku laabanaysaa Tonkeeper-kii. haddaba lambarkii aynu soo copy garaysanay ee miimada ahaa halkan committee ayaad ku qoraysaa. halkaas ayaad ku paste garaynaysaa. markaad lambarka halka aad ku paste garayso kadibna halkan ayaad ku sii dhufanaysaa halkan hoose oo sidaas ayaad lacagta ku diraysaa. marka lacagtu way ka baxaysaa. markay lacagtu ka baxdo waxaad ku soo laabanaysaa website-ka. markaad website-ka ku soo laabato lacagtii inay baxday waxaad ku garanaysaa labada qoraal ee midmadow ee halka kaaga muuqda ayuu kugu soo qorayaa waad ku guuleysatay oo lacagtaadii way ku dirsantay oo waan ku dirnay buu ku dhahayaa oo halkaas ayuu kugu soo qorayaa. haddaynu hoos yaro socono halkan hoose ay ku qoran tahay send a new message waxaad uga diraysaa wixii caawimaad ah. isla markiiba way kaaga soo jawaabayaan oo ragga sarifkan iska leh online-ka way fadhiyaan oo isla markiiba way kaaga soo jawaabayaan. marka lacagtu way ku baxaysaa. sidoo kale fariin bay kugu soo dirayaan Gmail-kaad soo gelisay ayay fariin kugu soo dirayaan. fariintaas way kugu sheegayaan lacagtaad dirsatay. sidoo kalena fariin kale ayay ku soo dirayaan markay lacagta diraan Gmail-ka kugu soo dirayaan. markay lacagtu sidaa u baxdo isla markiiba fariinta ayay Gmail-kaad gelisay kugu soo dirayaan. marka sidaas ayaad u sarifanaysaa lacagta kugu jirta Tonkeeper-kaaga ee USDT-da ah. markaad lacagta ku shubato baayeerkaaga uu sariflahan kugu shubo baayeerkaaga kadibna baayeer waad ka sii sarifanaysaa oo Somali sarif ayaad kaga sarifanaysaa. kadibna Somali sarif ayaa kugu shubaya saadaada ama sahalkaaga ama EVC-gaaga. marka qaabka fudud ayaad lacagta USDT-da ee Tonkeeper-ka kugu jirta ula baxaysaa. marka muuqaalkan waa muhiim. marka aad baad mahadsantahay saaxiibayaal meel walba joogtaan adduunka. muuqaalkana xaqiisa siiya oo like-ta saara saaxiibadiina u sii share gareeya si iyaguna uga faa'iideystaan. haddii aad nagu cusubtayna nagu soo biir oo subscribe-ta saar waad naga faa'iidi doontaa. mahadsanid. waa anigoo ah Maxamed Wardi Cali oo idin leh waynooya muuqaalka xiga insha Allah.